السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في الله waxaan doonayaa naftayda iyo naftiinaba inaan ku baraarujiyo xadiid ka mid ah xadiistii nabigeeni subana salawaatu rabbi wasalaamu calayh. waa xadiid aan u arkay runtii inuu aada u qaalisan yahay, uu aada u qiimo badan yahay, laga rabaa qof kastana inuu markaa ka faa-iideysto. laga yaabaa qofkii maqlo inuu ka faa-iideysto, fadlan walaal sii gudbi oo sheergare walaalada la wadaag. haddaba xadiidka aan rabaa caawa inaan idinla wadaago wuxuu yahay nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yiri idmanuu lii sittan min anfusikum admanuu lakum aljanna. wardadow 6 shay oo naftiina laga rabo inay samayso ii damaanad qaado kuwa ilaaliya oo sameeya noqda, anna markaa jannan idiin balan qaadaya. haddaba qofkii janno ilaahay doonaya oo janno ilaahay raba 6dan shay oo aan kala reeb lahayn, oo aan kala sooc lahayn, oo aan kala markaa kala tagsanaan lahayn, qofka inuu sameeyo wey. 6dan shay duuduub inuu qofka u sameeyo wey. kan koowaad wuxuu yiri nabiga sala allahu calayhi wasalam usduquu idaa xadathtum, war run sheega markaad sheekaynaysaan, markaad wartabinaysaan, markaad warbixin gudbinaysaan, markaad cid kale la kulmaysaan, markaad jaraa-idyo qoraysaan, markaad warbaahin markaad samaynaysaan oo war gudbinaysaan, intaba waxaa muhiima inay noqoto mid run lagu dhisay oo run ah inay noqoto muhiima. haddaba qodobka labaad wuxuu yahay nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay wa-adduu idaa tumintum, haddaba noqda kuwa markaa ammaanadii loo dhiibtay ilaaliya. ammaanada ilaaliya. haddaad ammaanada ilaaliso jannaad ku kasbanaysaa. haddaad tahay qof ammaano ilaalin badan, jannaad kusii socosaa, jannaad kusii socotaa. xarigaaga geejiso oo xarigaaga sii hayso oo sii adkayso, khayrkana kusii soco wey. haddaba qodobka saddexaad wuxuu yahay nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay wa awfuu idaa wucidtum, haddaba markaad balan qaadaanna kuwa balantaa oofiya noqda. balan markaad qaadaan kuwa balantii oofiya noqda. wax markaad balan qaado, markaad waxaan samaynayaa tiraahdo, markaa cid balan siiso, intaba inaad oofiso oo aada ilaaliso ayaa muhiima. haddaba qodobka afraad wuxuu yahay waqaduu absaarakum, aragiina markaa laabta. aragiina laabta oo indhihiina laabta oo kuwa markaa indhahooda laabta noqda. waayo xumaanta oo dhan halka laga arko ee markaa laga qooraansado ee laga indheeyo ee markaa laga macaanaysto waa indhaha. indhaha qofka markuu ka macaanaysto ayay xubnihiina sameeyaan. haddaba indhihiina laabta si markaa dunuub badan iyo aafo badan oo idinku iman lahayd oga badbaadaan. haddaba indhaha waa santarkii iyo xaruntii, haddaad ka adkaatana xubnahaga ood ka adkaanaysaa wey. haddaba qodobka markaa afraad wuxuu yahay waqaduu waxfaduu furuujakum, furuujtiina iyo farjigiina iyo xubnihiina taranka ilaaliya. marka aada ilaalisaanna wuxuu yihi nabi maxamed sala allahu alay waslm jannaan idin balan qaadaya. haddaba farjigaaga haddaad tahay qof farjigiisa ilaaliya, jannaad kusii socotaa oo sii soco farjigaaga iyo xubintaada taranka ilaali. haddii aad tahayna qof aan ilaalinina mid ilaaliya markaa noqo, oo markaa mid ilaaliya noqo, ilaahay subxaanahu watacaala jannadiisa rajaynaya. haddaba midda u dambeysa waxay tahay wakufuu aydiyakum, gacmihiina markaa xumaanta kuwa ka laabta noqda, kuwa ka celiya noqda. gacmihiina kuwa aan dadka lagu dhibaataynin kuwa dadka aan lagu dhibaataynin ha noqdaan, oo kuwa dhibaato dhan loo diida noqda, oo gacmihiina dhibaatada dadka iyo dulmiga dadka ka ilaaliya, xadgudubka dadka ka ilaaliya, xaqdarada ka ilaaliya, dulmiga iyo tacadiga ka ilaaliya. haddaad intaa ilaalisaan, nabiga wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam inaad janno kasbanaysaan. haddaba janno ilaahay ma wada rabnaa oo ma wada raadinaynaa? haddaan janno ilaahay raadinayno waa inaan dadaalnaa oo aan 6dan shay duuduub ahaan aan u ilaalinaa. ayagoon la kala reebin waa inaan wada ilaalinaa. ayagoon la kala socsoocin waa inaan ilaalinaa. 6dan shay waa 6 shay oo fudud, laakiin nafta inay samaysa ay adag tahay. marka shaytaan baa nafta ku xiriira oo wax alaala wixii khayr ah qofka uu raba markaa ka hortaagan. laakiin ilaahay tala saaro, dadaal, ilaahay dadaalkaaga markaa wuu ku waafajinayaa. oo 6dan shay aan ilaalino walaal baaraka allahu fiikum. aan caruurteenan ku tarbiyeyno, aan caruurteena 6dan shay aan sharci ooga dhignayo markaa base iyo markaa asaas iyo foundation
haddaba haddaan sidaas samayno caruur wanaagsan oo tarbiyad leh oo wanaagsan oo markaa ahlu khayr ah oo jannada markaa kugu helisay markaa caruurtaada noqonayaan. baaraka allahu fiikum. janalka subscribe gareeya, sheer gareeya, walaaladiin la wadaaga, waayo muuqaalo markaa diinaysaad u heshaan annagana markaa aan ugu dhiirana inaan wax idiin soo baahino. walaal baaraka allahu fiikum, gudbiya oo sheer gareeya, walaaladiin la wadaaga oo janalka subscribe gareeya. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.